قال دنتي هو يقانا مثالك ugu fududna waa ka hadaan soo qaadanayo Turkiga waxa laga sameeyay meeshan xuduudda Suuriya ay kala yihiin dhinaca waqooyi bari ah niman kurdiyiin ah oo Mareykanku uu sameystay oo hubeeyay oo ugu tala galay inuu ku kala gooyo Carabta iyo Turkida mar walba waxay ahayd kelida oo Turkiga oo kuwa gaalada ah ay kolba ka duraan kelida ka juqjuqeynayaan kuwan ay ku soo dirayaan wadankiisa dhibaato gaarsiinayaan sayid wuu ku rafaaday marka wuxuu go'aansaday marka waxaan hoosta laga soo geliyay inuu iska fogeeyo si meesha ay meel nabad u noqoto mid kale dadkan ay soo eriyeen ee Carabta ah ee Sunniyiinta ah ee Turkiga ay isleeyihiin Sunniyiin muslimiin ay isleeyihiin oo dhulkooda laga soo saaray oo qaxootiga Turkiga ku ah oo malaayiinta inay dhulkooda intuu ku celiyo meeshan ay degaan wuxuu marka iyiri suga xuduud ilaa 30 kiiloomitir oo dhinaca iyo geesaha kale ayadana intuu go'aansaday ayaan soo xiraaya qaxootiga Suuriya waan ku soo celinayaa kurdiyiintan ay nagu soo hubeynayaan Mareykankuna meeshan ka bixinayna meesha kale doonha aadeen dagaalkii markuu bilaabay oo saar loo arkayba maalmihii kood way yara qayqayliyeen bal inuu ka joogsado tuu ka joogsanaya qof markuu go'aan gaaro waa inuu hor u socdo afmaayma waxa la yiraahdaa lan uur nugul adiin mudubow nin waxa laga wadaa qof markuu calool jilicsan yahay oo uur jilicsan yahay adiin moogtaa afmaayma waa sida Ingiriiska oo kale waa British oo kale si kuma jirto ماشي سي أتكو أريد كتور بس علي هذا مثلا علي صار ما له سي ذا كتور علي علي ولا يو علي لا واي مرة هذا محاتي مثلا برورته وكلا برورته حال عدين ولا عدين برور عدين كوجر سوما عدينته سي ذا كتور مرة عدينته معكو صاري كاس مرة عيدان لم أور نقول الدين مدبو من بيرجع العسن وعلى وجه العسن عدين تان هيلب كانوا برورته مدوا بيكروا ما حد مركو دبك ساعة وسعربة فش مركو كسوق قادر إنه بيساعدوا ملايا باشوا عيرينه كينا مرك ما حد ربع إن نلعب سنين وعدين تلوها يو فش وليد بهايس متى قالوا حالي الدقائق ده مركي اللي جورو لقلاي سي يعني لوجا ريفو لوجا تنكره أما بولكا بيحلقوا شبا بيأكلوا biyaha markii lagu shubo inta laga rifaayo way dhimatay digaagadu laakiin markii la jiidaayo codaa ka soo baxaya qiiq ay dhahay marka qofka marka uur nuulka ay sheeganay cabsanayo xoogaasaas qiiq markay dhahdo inay noo soo maleynaa ma rifi kara marka asna maamaha loo sameeyay waxa la yiri doorada iyo kii guraasay rifowka la jeed waligeed baqiiqa ku haysaaday hawshaada la iska wado rifle adi ayadoo dhogortii aad ka dhamayso maadalka aad ka dhamayso markii dadku ay soo jeestaan oo dhahan waraa qaylo naga daaya danteen anaga naqaan idinku nooma yeerinaysaan sidee yeelan Turkiga waxay dhahan anaga dib meesha naga soo gaaray walaalahan Suuriya dib soo gaaray qaxootiga Turkiga yihiin waa culays weyn meeshoodan ku celinayna dhulkooda ay dagaayaan haddana Carabta oo Sunniyiinta iyo Turkiga in la kala gooyaan raba Turkina waxa mabda ka ah Carabta inay isku xirmaan oo maadaama Sunniyiin isla yihiin waxa maanta la baabi'inayo ee la gumeysanayo ee la rafaadinayna ay Sunniyiin taayeen زعيمك ويناء حرمين كجوجي اللي قربي إنه الصنيين تعرورينا السجا أي محاهد اللي باتنا وكي ما طيوا حاجة كلام وكسر صفت أو مريكان كو بعضها يا وعبسنا كالي وردي أولها والله مريكان كل بقص نقنا عليه مشروع وين وكنا كولا بس صدق حفر شن وهرجعون مشروع عن حكومة بحس أنت مشروع أنت أسكوب بحس أنت مركي الإسكوب دارو أنت أو مليار أي نقنا يسا مركا إسكب بحي وبحين كرتانة هاي وان بحينا وحوري السعودي والحنوية مرين قدايا ودكنا ودوجين واسي ساعة لسنا إنه أكله ساعة أنتوا نوليه وان لسنا إننا هدور بنتنا مقار كان كبحنينا أيوة أستاذ اللي سومر هنا داوريا نمل لسنا يسد مقار كان اللي مبحيسد ضد كان مسلمين تا سنيين تا يعني زعيم النقنينا ورتركي آوي ماليزيا آوي باكستان آوي أنا سكدر سنة دقالة هنا عيدا كان أنا قال إسك علنه جاب إسك علنه وده أساس نقطة مسلمين تو إسرائيل هاي لكن محيكوا قلت الله نوحوري وقاعد أدور كجوكت يعني موقتي وحاكجر كوا واوين وحاكم كوا واوين بعيدك وحلاقي هاي دمار كلاقي أما الدبي أيو لاقي وحوري وقاعد مركز على إسكسو الدشاء وعلى إسك قبصة وحوري وقاعد وحي جبتي مالك بعيد وكفي فلي كالنقضي هدو بعيد وجيسي أهان لها حوق يسن وقبيسان أهان لها وقاعد وحسو دوان لها مجرته لكن وقاعد وحي جبتي مالك وبعيد كفل يوبي وفلي وكالنقضي
marka sunniyiintu waxay jabeen meeshii ardul xaramayn oo asxaabta ay joogi jireen oo nabiga uu ku duugan yahay oo la rabay diinta in laga faafiyo oo meeshii muslim lagu dhibaayo war muslimka maxaa loo dhibaaya oo muslimiinta ay wakiil u noqdaan oo ay u doodaan yaab u doodayeen waad aragteen Soomaaliya tagaaya baasaboor wata Soomaaliya koo walaalkiisa oo baasaboor Kanadiyaan ama Mareykan wato oo ay xajka isla aadeen way soo socdaan waa Soomaali waa walaal waa isku aabo waa isku hooyo laakiin warqadaha ay wataan baa kala duwan kii oo Kanadiyaanka watay ama Mareykanka watay saadid garoonka looga dago Kanadiyaan American ma isla markii gal socole kii walaalkiisa la socday adiga warqada ay tus baasaboor Soomaali xaq istaagaday warninkan aasa soconaa walaalaana sadwala ku tinkan Mareykan way adna Soomaaliya tahay yay ahayd in la soo dhaweeyo Soomaaliya in la soo dhaweeyo maxaa yeelay waa wadan muslim ah meesha loo socdana waa dhulkii muslimiintu ay iska lahayn al-masjid al-haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa al-aakif fihi wal-badi kadegan iyo ka banaanka ka imaanaya muslimiinta iska leh waxa kharashka ay muslimiintu u bixinayaan waa jacayl masaajidkaas ay u qabaan masaajidkuna ma hotel ay dad leeyihiin ma oo la ijaarinayo waa al-masjid al-haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa cid gaar u qaadan karta ma jirto ummadda muslimiinta oo dhan uu ka wada dhaxeeyaa marka al-muhim Turkiga waxay sameeyeen markay u soo diyaar garoobeen soo jeesteen oo dhahan hawshan waan qabsanaynaa Mareykan dantii uu yaqaanay wuxuu yiri aan ku imaado wafdi uu soo diray 5 saacadood la wada hadlaayay waxa lagu heshiiyay nimankan aad la dagaalayso marka hore anaga sameeynay 5 maalmood oo aan meesha uga bixino oo aan kaaga saarno adoon dagaalaminba 5 maalmoodna si hubka waaweyn ee siinay haysan xataa way ka tagayaan ma qaadanayaan maxaa saayidin diiday baxu dhaw waan siina markaas halkaas maanta waxa la soo ambaliinay Turkiga intasarat waxaana u suurta gashay aayadii oo dhahaysay wakafa Allahu almu'minina alqital yani dagaal inay gasho oo dadka ma fiicno oo muslimiinta yani hadiiba laga maarmi karo dagaal la tatamannu liqaa al-adu wasalu Allah al-aafiya laakiin markay ku qasabto oo meel kale ka baxda aad weydo aqliga iyo sharcigu wuxuu sheegayaa war iga leexay inaad qofka ku dhibaay marka haday dadku soo jeestaan waa kaas shucuubtu marka maanta way nool yihiin Tunis waa maqlayseeno yani doorashay galeen shacbiga gaar ahaan dhalinyarada ayaa ugu badnaa dadka oo leeynay oo laha anaga xurriyad ayaan rabnaa markaas wixii la yaqaanay ee siyaasadii hore dhan inta laga baxay yaa waxa la soo saaray madaxweyne dhaxdhaxaad ah oo meelna aan ka tirsanayn laakiin wadani ah sifada uu leeyahay ay tahay Tunis oo ogtihiin Faransiisku iyo luqada ay ku hadlaan xataa Faransiisina ay u badnayd oo xataa Carabiga markay ku hadlaayaan waxa jiidanaya naqmadii Faransiiska Carabigiisii Faransiisku ugu hadlaayaan waa madaxweynaha Tunis ka soo baxay oo luqada Carabiga ee fasiixa ah aan hal kelimo ku soo dareyn oo Carabiga soo ugu hadlaayo oo fasiixa ah oo aan saameyn lagu yeelan su'aalo la weydiiyo ugu hor waxa kamid ah yahuuda ka waran markaas ay yahuuda Soomaa dagaal anaga dhaxeeya maxaa yeelay waxay haystaan shacbi ayay gumaysanayaan adduunka dhan saas la rabaa in la dhaho ma aha yahuudu say dadka u sheegayso yahuudnimada ayaana lagu haystaa oo mucaadaatu saamiya yahuudnimada la nicib arintu yahuudnimo ma ah ee yahuud waa dhulmiga ay geysanayaan maxaa yeelay wadan islaameed intay qabsay waa quwaatul ihtilaal qarni 12aad ayaa waxay taagan yihiin aan dadkan gumaysan oo ku kor fadhino war dadkan ka kac maxaa kartaan waa Falastiin Turkiga waa ogtii madaxweyne Erdogan intuu qaramada markuu tagay iyo khariidadii wuxuu soo saaray yahuud ay ku degtay Falastiin markaas 48 markay soo degeen 47 yahuud bal fiiriya meesha ka joogtay waxyaar markaas maanta xagee joogtaa bini aadamnimada keenaysa in yaani dhaalim la taageero bini aadamnimada ma laakiin islaamka iyo bini aadamnimadu waxay sheegayaan qofka madluumka in la garab istaago marka shucuubtu waxay u socdaan inay xoroobaan wayna xoroobi doonaan ficlan innagana shucuubtan baan qayb ka nahayo hadii wax la is dooranaayo haday dadweynuhu soo cishtaan ama la helo inay dadku codeeyaan oo intii nabadgelyo la helo la yiraahdo yaa idin xukumaaya soo saar qofkii idin xukumi lahaa waxa loo dadweynuhu waxay soo saarayaan qof fiican oo ummadda danaheeda ka shaqeynaya laakiin dadweynuhu waxa inagu dhacay xaqi aan lahayn ee ahay qofku xukumay asaga inuu doorto mar hore marna burbur ayaan la dooran weynay mar horena waa la diiday oo xoog la isku qabsaday ka bacdi waxaan noqonay meel hadda qofku uu ka soo galo soo galo wali inooma fariisanin laakiin waxa imaan doonta xilli dadweynuhu dowrkooda intuu soo noqdo siyaasi kasta oo dadka iska gadaayo oo dadka wax ku soo celinayo oo hadduu dadka iska hagaajin waayo uu kursigiisa u cabsanayo uu leeyahay waan idin shaqeynaya asoo jacayl dad ayna hayna xataa waa markuu og yahay dadka inuu cod ka rabo laakiin markuu san dadka cod ka rabin wax noo qab hadaa dhahdin oo maxaan kugu fali ayaa meeshan ku taala maxaan kaaga sasaban maxaan kaaga bedelay
oo soo inaan ku doorto ma rabtid maya ma doorasho mar in hadda kor waxa la yiri guriga Ilaahay nabad kugu ma geeyo waaba hadaan u socdo dhahay xaqiisa ma u socdo marka hadda waa sidoo kale shacabkii laga cabsan lahaa oo dhila war dadka inagu dirina guriga uma socdo way macna codba kama barab laakiin ha fogaato ha dheeraato ha socoto waligeedba ugu dambays waxay intagi doontaa shacbigu wuxuu rabo ida shacbu yawman arada alhayaa فلا بد أن يستجيب القرار dadku haday inay noolaadaan ay go'aansadaan cid kasta shacbi ayaa ka xoog badan marka fikradda inay isbedesho oo dadku ay noolaadaan oo ay wadankooda dhistaan oo xor ay noqdaan oo wixii ayaga u dan ah ayagu ay soo saartaan waa mid aan u socono hadii marka taas dadka qaar ay siyaasad u yaqaanaan oo ay misaadka maxaa looga hadlay dhahayaan waxaan ku soo gabeynaa xigmadii uu ka tagay Sheekh Xasan al-Banna wuxuu yiri waxa idinka siyaasad ayaad ka shaqaysaan oo siyaasad iyo diinta soo geliseen markaas wuxuu yiri yaa qowmana wuxuu yiri inna nunaadiikum وأن ذين نادينينا وأن ذين رواقينا والقرآن في يميننا قرآن كنا قعنت مدك أيام كويسنا والسنة في شمالنا سنتنا بدحت أيام كويسنا وعمل سلف الصالح من أبنائنا قدوتنا ذاتك نقول المسلمين تحسيت أنك شكين نبيك يا أبو بكر الصديق يا عمر يا عثمان وإحنا قدوتنا وذاتك أنكم دايرين فإذا كان هذه عندكم من السياسة هذا سياسة تقنان فهذه سياستنا أنا سياستنا وتاس وإذا كان من يدعوكم إلى الإسلام هدو يقفك إسلام كيدنكو يرايا وإلى أحكام الإسلام إسلام كأحكامتيس وتعاليم الإسلام قفك يدنكو يرايا هدو عندكم سياسيين هذا كسياسة تقانانا فنحن والحمد لله أعرق الناس في السياسة هذه تا سياسة أكتنا كتاي تدك وحي لير سياسة أيانها نوجاده لكن هو أساس وحن كهالين والدين ومبادئ وأفكار للرميسية ودتك دنتودا يكون جرتو الدنيا آخر ما يكون لبنا إن دين تودا نلاش هذا كو قابيستان إلى إن كل الجليان آخرنا أيجو عمل ونكسر صوص ما يصير ودين تودا الدولة تودا الشعب كودا أيوة في عين لصوص صاروا تاسوا ميدان كشقينينه هذا تاسي مركع دتك قار سياسة وكسايان بل وحي كلا أيوة إسكادن تمد خيانة شقاق كبلين لكن مد توسين تاه ومد الغور سايا ومد يعني إلهي سبحانه وتوفيق هنا وافجيو ومد يعني إلهي سوسو عليو يبقى الله ينقص صاروا مد الصومالي دور كإلهان جرتين إلهي سبحانه وتعالى أسيو جزاكم الله خير